siyaasiga Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa soo dhaweyntii ugu weyneyd ee abid loo sameeyay maanta lagu qaabilay gobolka Awdal gaar ahaan caasimadiisa Boorama iyo magaalada Dila. Professor Samatar ayaa waxa ku soo dhaweeyay magaalooyinkaasi boqolaal dadweyne ah oo saaran gaadiid iyo dad kale oo aad u fara badan oo tubnaa wadooyinka hareerahooda kuwaas oo lulayay caleemo qoyan isla markaana ku dhawaaqay ereyo soo dhaweyn ah oo ay ku qaabilayeen professorka. Dhankiisana Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo isagu saarnaa gaadhi uu inta sare kala baxay wuxuu gacmaha u haadinayay dadka soo dhaweynaya ee magaalooyinka gobolka Awdal ku soo dhaweeyay. magaalooyinka uu soo maray ee Dila iyo Boorama wuxuu kala hadlay dadweynihii ku soo dhaweeyay fagaarayaasha magaalooyinkaasi waxaana ku soo dhaweeyay goobaha uu dadweynaha kula hadlayay madaxda degmada Boorama iyo Dila iyo qaar ka mid ah madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal waxaana ka mid ah hadaladii Professor Samatar ka jeediyay fagaarayaasha lagu soo dhaweeyay maanta. dadka Boorama iyo hareeraheega degan inay yihiin dad elabta iyo xabada yaqaan edeb leh jeesiga ah oo qarannimada iyo dadnimada waxay tahayna garanaya. sida ay soo dhaweyseen waxaan anan u qalmin oo aanan weli kasban weyn laakiin waa mahadsantiin. دولتنا جمهورية الصوماليلاند وفرده إلى الصعلاء القرب كنيسوسيين ووزيرك القانون وهو ورافع عبد الله. sidoo kale madaxda iyo mas'uuliyiinta degmada Boorama iyo duubabkii dhaqanka ee soo dhaweeyay waxa iyagana ka mid ah hadaladoodii soo dhaweynta ay ku soo dhaweeyeen Professor Samatar. si kastaba ha ahaatee soo dhaweynta weyn ee uu kala kulmay Somaliland Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo sanad ka hor ahaa musharaxii u taagnaa jagada madaxweynaha Soomaaliya ilaa iyo haddana gudoomiyaha xisbiga Hiil Qaran inkastoo uu iska casilay xilkii mudananimada ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka ahaa ayaa la isweydiinayaa waxa ay ku heshiiyeen isaga iyo Somaliland maadaama mowqifkiisii siyaasadeed uu ahaa midnimada Soomaaliya. Hashim Sheekh Umar Good, Somalisat TV, Boorama.